tashada 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 Soomaaliyeed tashada Soomaaliyeed tashada 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 Soomaaliyeed tashada Soomaaliyeed saaxiibayaal waxaa ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno dib u dhaca ku yimaaday doorashada federaalka Soomaaliya. qaybaha bulshada Puntland ay ku nool ayaa aragtidooda ka dhibtay waxaana ka mid ah bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaa la joognaa aqoonyahan ka mid ah aqoonyahanada Puntland kaas oo nooga warramaya khilaafka ka taagan in doorashooyinka hadeer mudane ku soo dhawow. waa mahadsantihiin. magacaygu Cabdiraxmaan. haddaan su-aasha u guda galo khilaafka ka taagan doorashooyinka heer federaal waa khilaaf cad. khilaafkaasna waxaa lagu xallin karayaa waxyaalaha la tabanayo inay dowladda federaalku tabashadaas xalliso oo ugu horeyso tabashadaasi in guddiga doorashooyinka dadkan dowladda u shaqeeya oo amniyaadka waxaa laga saaro dad madax bannaan la keeno. markasta guddiga doorashooyinka horta xaq waxa uu leh inay dowladda federaalku cidii rabto u magacaawdo, laakiin dad amniyaad iyo waxaa ka shaqeynaya niisa dhexdeeda in laga magacaabo waa laga fiican yahay. hawshan gedana horta geda meel xuduuda bay ku taallaa. ciidankan la leeyahayna laga soo kaxeeyo sax ma aha arrinkaasi. waa in ciidanka loo daayaa. waa meel xuduuda, waa dalan mataqaanaa safaaradihii kala qaadanay xadkooda ciidan laga soo kaxeey maayo gedo, laakiin waa inuu Axmed Madoobe ciidankii Jubbaland keenaa si ay doorashadu u dhacdo oo ciidankiisu maamulaan. korjoogtana lagala socdaa iyo ciidanka federaalkana korjoogta keenaa oo lala socdaa si xaalku u dhacayo. doorashooyinka labadaas hadeer ugu muhiimsan oo dadku isku haystaan. labadaas xal haddii laga gaaro doorashadu horey bay u soconaysaa, laakiin hadeer sida la filayo gadaal bil baa laga yaabaa inay gadaal u dhacdo waqtigii loogu talagalay. waqtiga hadeer joogna waxaa la rabay inay xildhibaanadii soo baxaan federaalka aqalka sare, ergooyinkii diyaar yihiin, xildhibaanadii kale oo aqalka hoosena iyagana hawshoodu socoto. ilaa iminka wax socdana ma jiraan. hawshuna waxay ka taagan tahay guddiga doorashooyinka iyo ciidankaas la geeyey ciidanka geedaha laga soo celiyo la leeyahay. marka anigu waxaan ku xalin lahaa guddiga doorashooyinka tabashadoodu waa fududahay. guddiga doorashooyinku hawshay qabtaan waa hawl iska yar. waxay qabtaan badi waa maalin hebel bay dhacaysaa isku dubaridkii doorashooyinka waxaas qabtaan. ciidankan gedana ciidanka xuduudka jooga ciidankaas lama soo kaxaynayo, laakiin ciidan kale Jubbaland baa la keenayaa oo maamula hawsha doorashooyinka maamula. Axmed Madoobe sida in lagu qanciyo weeye. intaasana ugu soo jeedin lahaa. mudane ku soo dhawow radio Magan adoo magacaaga ku bilaabaya. bismillaahir rahmaanir rahiim. maasantahay. magacaygu waa Sakiri Cabdirasaaq. su-aashan ku weydiina waxa weeye hadeer ayamahan waxaa lagu jiraa doorashadii waqtigeeda waa jirta, saas ay tahayna waqtigeedii dib ayuu uga dhacay. maxaa keenay in doorashadu dib u dhacdo? doorashadu wallahi in dib u dhacdo waxaan oran karaa anigu waxaa sababay inay maamul-goboleedyada qaar filin waayaanin barnaamijkii lagu ballamay Dhuusamareeb 1 iyo 2. sidoo kale waxaa jira khilaafaad u dhexeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo dowladda dhexe. iyaga xal ma laga gaari karaa? wallahi xal waa laga gaari karaa haddii maamul-goboleedyadu tanaasul sameeyaan. sidee xal looga gaari karaa haddii tanaasul jiro? wallahi horta wax walba dee tanaasul ku dhamaadaanin. tanaasul la'aan waxa ma yimaadaanin. maamul goboleedyaduna wax looga baahan yahay inay ballanqaadkii ay qaadeen inay oofiyaanin oo dastuurka ilaaliyaanin oo barnaamijyada lagu ballamay inay oofiyaanin oo guddiga doorashooyinka soo xulaanin. maamulada Jubbaland iyo Puntland waxay ku andacoonayeen in gobolka Gedo laga saaro ciidanka federaalka ah ee halka jooga maadaama ay Gedo ay tahay xadbaneedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. hadeerna khilaaf baan ka dhaxeeyo la gaaray in diblomaasiyiintii xiriirkii la isku jaro. xadbaneedkaas ay Jubbaland ku andacoonayso doorashada tiri federaalkuna laba meel laga qabto Kismaayo iyo Gedo laga qabto
khilaafka ma sii kicin kartaa Jubbaland iyo federal ka dhexeeya wallaahi waxaan oran karnaa dowladda gobolka Gadow waa gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya dowladuna xaq bay u leedahay gobol kasta oo Soomaaliya ka mid ah inay xuduudiisa joogto doorashada lagu qabto maamulka Jubbaland iyo Puntland waxa dan gaar hadaan wadan waxa looga baahan yahay inay wixii xaq loogu lahaa doorashooyinka sida gudiga inay soo xuraanin معارضكي ما مقولة بتلاني جوبلان قارقود وحي كو أندعونayaan in musharaxiintii laftooda wax leeyihiin doorashada gudiga doorashada waxa kamid ah ciidamo qaranka Soomaaliya ah oo qaarkood la dhaho NISA ayaa kamid ku andacoonayaan iyaga sabab ma u keeni kartaa inay doorashadii baarlamaanka maadaama ay dib u dhacday tan madaxweynaha 8 February lagu balansay dib ma u dhici kartaa والله dib u dhici kartaa balse hadii laakiin si tanaasul laga sameeyo wax walba wada hadal bay ku dhamaado wada hadal hadii laga go'do dib uma dhici karto sanadkan gudihiisa ayaa wax la gaaray doorashada in waqtigeeda ay ku dhacdo sidoo kale madaxweynuhu wuxuu saxiixay doorashada in la qabto hal qof iyo hal cod waqtigii Xasan Cali Khayre ayaana lagu ballamay si wali wax lagu ballamay baydhabo in doorashada hal qof iyo hal cod dhacdo maxaa keenay in hadeer doorasho dadban ay dhacdo wallahi waxa keenay baan oran karnaa waqtiga oo iska adka dalka waxa duruufo adag ku jiray dawladda duruufadan iska daalacaysay iyo khilaaf ka yimi maamul goboleedada qaar iyo dawladda soo kala dhexgalay فرنت أوريبيس محاوية معارض كمشرحين تاع يو دولة فدرال كإمام قبل هذا أردن. مركو هذا السؤال شان أوريبيو معول قبل هذا جبلان يبتلان وحي تهاي إن أي فلويانين أما ورتا شرعية اللي جربوا إن جودي دورشة جيانين إن سيدا مقطع وحي وضانين إن ذلك كذا عدو حسلوني درس سياسيات وما سين ذلك كذا ذلك قالوا أرين عن وناكسنين خلخل سياسي ندركوا قالوا هذا واحد يقصدنا إن مظاهرات ودعاي أو أي سوء أبابولين لها معارض سوء أبابولين كاس أو صابي إن محي عايدو هب ووين سوء أدكسدو دولدنا أي صدرتو إذن معارض كنا أي صوبيين سيد الله الشيء محا يجنا طريقة لا هاي السيدة موقتها وحنا لها مشرحينتا iyo mucaaradka siyaasiyiinta dalka farmaajo ma dalka waxa dalka dal Soomaaliyeed dalka inaani dalka imaanta u tartamayaan ama soo baahan yihiin inay xilka qabtaaneen ama kursiga madaxweynaha ee dalka rabaan dantooda inaanay ka fiirin danta qaranka inay fiiriyaan inayna arinta mudaharadada waa arin khalkhal ku keenay amniga in dawladana anaga soo jeeseen wixii sax ah dawladda ka soo baxa in la raaco shariixinta mucaaradka wixii looga baahan yahay in raacaan baan rabaa aad baa u mahadsantahay mudane ku soo dhow raadiyo magan adoo magacaaga ku bilaabaya aad baa u mahadsantahay magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Daahir Cabdullaahi waxaan ku weydiinayaa dhowr su'aalood oo ku saabsan doorashada federaalka ay hadda taagan maxaa sababay khilaafaadka doorashada inuu dib u dhaco khilaafka waxa sababay cabasho badan oo ka yimi gudiga ay magacowday dawladdu iyo sidoo kale iyo maxay to inay maamul goboleedyada qaar heshiiskii lagu gaaray Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo kii 3 ahaa oo Muqdisho markii dambe lagu soo gabagabeeyay oo ay dawlad goboleedyada qaarkood fulin waayeen doorashada maxaa keenay inay dib u dhacdo والله هدير هدان في doorashada waxyaalaha dib u dhigay maxay tahay wax kamid ah in ay dawlad goboleedka Jubbaland ku andacooday in maxay tahay gacantooda aysan ku jirin gobolka Gado iyo mucaaradku dhaliil ka keenay gudiga ay magacowday dawladdu iyo isfahan laan ka jira xagga dawladda sidaan ognahay gobolka Gado wuxuu ku yaala xadbanaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dawladda federaalku maadaama ay tiri doorashada gadama ku qabanayna iyo Kismaayo ma laga diidi karaa Jubbaland maadaama ay gado xad ka tahay
والله إن دي أرنتاس waxay u taalaa waa labada dhinac inay tanaasul sameeyaan oo ay soo dhawaansho sida muuqata hadeer labadu wax isku tanaasula iyo soo dhawaansho midna ma jiro midba gees ayuu ka taagan yahay de inay gaaraan xal waara oo ummadan maxay to xal u ah oo ay ku heshiyaan afgarad ka gaaraan baan rajeynaynaa arrinkaas xal ma laga gaari karaa doorashada ilaa ay khilaaf baa hareeyay xal sidee loo gaari karaa awgse maxaa qabtaa aniga haddii shakhsiyan ahaan waxaan qabaa in doorashada ay waqtigeeda ku dhici kadho waa haddii khilaafka taagan iyo tabashooyinka jira xilligan in laga xaliyo dhan walba doorasho heshiis lagu yahayna oo bulsho in ay ka dhacdo dalka 8 Febraayo 2021 taasna maxay to aan ku talin lahaa soo jeedin lahaa in labada dhinac maxay to ay sameeyaan tanaasul si ay dalku doorasho uu aado ma dhici kartaa in dib doorashadu dhacdo tan madaxweynaha sababtoo ah san ognahay waxa lagu ballamay December 10keedii oo in la qabto doorashada aqalka sare iyo aqalka hoose dib ma u keeni kartaa intii madaxweynaha 8 Febraayo ahayd oo dib u dhacdo dhowr bilood ama bil wallahi waa dhici kartaa in maxay to ay doorashadu dib u dhacdo waa haddii maxay to ay isfahan laga gaari waayo maxay to tabashooyinka jira hadda marka haddii tabashooyinka iyo tanaasul iyo soo dhawaansho uu yimaado meesha waqtiga madaxweynaha sidoo ogsoonahay waxa ka haray muddo 40 iyo dhowr bari ah haddii uu labada tanaasul ku bato oo danta dalkana loo turo in ay doorashada madaxweynaha ku dhici kadho inta ka dhiman bishan haddii xal laga gaari waayo haddii ay bishan ka dhiman xal laga gaari waayo waxay u muuqataa inay doorashadu dib u sii dhacayso dawladuna ay qaban doonto doorasho maxay to aan lagu wada qanacsanayn mucaaradka iyo dawladda xubnaha ka ah qaarkood sida Puntland iyo Jubbaland waxay ku andacoonayaan in ciidanka nisa ay ka mid yihiin guddiga doorashada iyadoo khilaafka sabab ma keeni karta in doorashada waqtigeedii ay gadaal uga sii dhacdo maadaama khilaafku aad u sii xogeysanayo haddii aan la bedelin wallahi maxay hore heshiiska waxa lagu gaaray magaalada Muqdisho in uu heshiisku maxay to sharcigu u dhigayo waxa weeye in heshiiska sidii loogu ballamay in loo fuliyo maamul goboleedka Jubbaland guddi bay sameeyeen guddigana waxa ku jira xubno ka tirsan madaxtooyada Jubbaland sidoo kale la taliyaalaya ku jiray dawladuna waxay magacowday guddi lagu eedeynayo inay ka tirsan ciidamada amniga marka dawladii Xasan Sheekh Maxamuud sidaas oo kale gudiyada dhaliilo badan waa ka jireen maxay to gudiyo maxay to ay sida waa lagu eedeynayay balse maxay to wax kasta waa isfahan iyo tanaasul waa inuu ku yimaado waa sidaan hore kugu sheegay tan federaalka haddaan eegno sidii ay ku dhacday oo kale Jubbaland oo kale sidii Axmed Madoobe guddiga usoo magacaawday xildhibaanada ka dhigtay dadkii wariyaashii ahaa ka agdhowa madaxtooyada Jubbaland taas oo kale ma dhici karta inay taa federaalka oo kale ka dhacdo horta aad bay u kala duwan yihiin maxay to doorasho qaran iyo doorasho gobol bay kala yihiin haddii maxay to doorasho awal waxay Jubbaland waxay doorasho gobol oo maxay to aan ka baxsanayn inta gobolka laakiin tan qaranku waa mid saameynaysa dhammaan dalka intuu maxay to leeyahay maxay to isqabqabsi badan iyo maxay to way ka imaan karaan taana iyadoo laga digtoonaanayo waxaan ku talin lahaa in maxay dawladdu tanaasul samayso maamul goboleedyada sidoo kale in ay maxay dantooda ay ka fiiriyaan danta qaranka ay u tanaasulaan qarankooda madaxweynaha waxaan kula talin lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu sameeyo maxay inuu qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dalkan u horseedi kadha xasilooni siyaasadeed waa ka mucaaradka iyo maamul goboleedyada aan soo magacaabin maxaa fariin u reebaysaa wallahi fariin waxaan u reebayaa waxay tahay maxay to Muqdisho Dhuusamareeb 1 baa ka qayb gasheen
baa ka qayb gasheen haddana muqdisho shirka ka qayb gasheen heshiis baad gasheen maxay heshiiskan hadde waa in la oofiyo waa wax sharciya waa wax diiniya waa wuxuu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam inagala dardaarmay in maxay heshiiskii aad ballan qaadeen oo qalinka u qaadateen oo baarlamaanku ansixiyay oo madaxweynuhuna saxiixay inaad aqbashaan oo aad maxay ka qayb qaadataan oo qaranka aad u hiilisaan maxay ahayto ayaan ku soo jeedin lahaa madaxda gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland waxaan u soo jeedinayaa inay si degdeg ah guddiga u magacaabaan si uu dalku uga badbaado rabshado iyo qalalaasa siyaasadeed oo abuuri ka dhaxasuloon siyaasado darro aad u weyn maxay ahayto cadawga argagixisada al-shabaabna ay ka faa'iideysanayso marka intaas ayaan u soo jeedin lahaa amudan waxa ku soo dhawaatay idaacadda radio Magan bal horta ku soo dhow adigu magacaaga ku bilaabaya waan dhawahay magacaygu waa Abdiraxmaan Yuusuf Axmed waan ku dhawahay idaacadda waxaan ka hadlaynaa khilaafaadka soo badanaya ee ku yimaaday doorashada federaalka iyo heer maamul goboleed maxaa sabab is dhihi kartaa inay doorashada dib u dhacdo horta su'aashaas waa su'aal dhammaan dadka aqoon-yahanada iyo kuwan aqoonta siyaasadda oo lahaynba maskaxdooda ka guuxaysa xaqiiqatan walow siyaasadda Soomaalidu ay u badan tahay midahashadiisa 80% wax laga qabto ama laga saadaalin karo dadyoga dahashadiisa jooga kaliyana ay saadaalin karayaan meesha ay ku damaynayso iyo waxyaalaha maxsuulka ee soo bixi karaya haddii aan anigu inta aan karankayga maskaxdaydu ii sheegaysa aan ku dayrsado waxaan filahayaa qiyaasahayaana si xoogan ay ugu muuqata in ay doorashada dib u dhigtay sabab ay ka mid yihiin cadaadisyo ka dhana mucaaradka way ogsoonahay mucaaradku waxaa muddaa saaxadda Soomaaliyeed 80% laba garab oo kaliya inay hadda u kala jabeen qolo mucaarada iyo qolo muxaafida waxaana dhammaan dadyoogii tartami lahaa isugu biyashubteen amase badankooduba mucaaradka taas waxay keentay in doorashadii qaababkeedii wada hadal badan la geliyo cadaadisyo badanna way sababtay mid kaloo aan iyadana u aanayn karo waxa weeyaan rabitaanka maamul goboleedyada oo iyaduna run ahaantii aad u kala fog kullama de wadanka baahidiisu ama rabitaanka wadanka ama maamulka wadanka rabitaankiisu u baahana waxaa dib u dhaca ajandayaashii markaa la damacsanaa intaasaan qiyaasahayaa inay dib u dhigtay saameyn intee la eg ayaa ku yeelan kartaa in waqtigii doorashada madaxweynaha maadaama hadda lasoo dhaafay baarlamaanka la dooranayay madaxweynaha inay dib ugu dhacdo wallaahi xaqiiqatan horta saameynta guud ahaanba dowladdu ay sababi karayso hadda dowladaha Soomaaliya ka dhisan waa laba saameyn oo kaliya inay saameyn amni yeelato xaaladaheedu iyo in saameyn siyaasadeed ay yeelato way ogsoonahay oo hadda dowladaha Soomaaliya wixii ka dambeeyay kacaankii faraha ugu maanay jirin saameynta dhaqaaluhu maadaama aanay dhaqaalihii dowladdu 80% saameyn badan ku lahayn oo dhaqaalihii dalku uu gacanta ugu jiro dadyo khaasa dowladdu qaralaasaha ku yimaada ama faa'iidooyinka ama guulaha ay gaadhaan waxay saameyn karaanba laba wax oo kaliya inay yeeshaan saameyn amni oo destructive iyo constructive isugu jira iyo mid siyaasadeed oo instability iyo instability isugu jira marka haatan waxaan qiyaasahayaa dib u dhaca doorashadu inay saameyn amni iyo mid siyaasadeed yeelan karto walow haba xooganaatee midda siyaasadeed iyadoo aanay yarayn midda amni way ogsoonahay oo ayaan dhowey taxta waxaa dhacay mudaaharaado u qorshaysnaa qaab dagaal waxaa madaa in saansaantii ajandayaashii ama mirihii laga dhexli lahaa doorashada daahitaankeed inay bilaameen khilaafaadkan xal ma laga gaari karaa soo noqnoqonaya doorashada wallaahi horta nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi muslimiinta markii la tilmaamayay walaa tafaruqu ha kala fogaanina ayadna waxayna faraysay iyadoo astaanta islaamka sheegaysa ama mu'minimada oo amruhum bishuura inay dadku shuura ahaan ay u tashtaan horta kulamada Soomaalidu ay siyaasad ahaan u qaadanayeen intii dhex ahaydba kulamo waxay ahaayeen garab uu guusha raadinayay run ahaantiina marka laba qof ay xifaaltamayso qof walba maxsuulka iyo wanaaga ma eegay wuxuu eegayaa gacan sarreynta waxaana hal mid ma jeclaan lahaa oo xalka in lagu gaari karo ay la muuqato in guul iyo guul darro indhaha laga laabto la eego maxaa xal u ah Soomaaliya haddii xalka Soomaaliya si sax loo raaco waxaa khasaba garbaha tartamaya garab kamid inuu guul darro tirsado garabna uu guul tirsado inta garabka guul darrada tirsanayay aanu tanaasulayn ilama aan in xal la gaari doono shir kasta iyo kulan kasta oo la qaato waxaan ku soo koobayaa su'aashaas kulan loo beer xaaran yahay hala qabto oo ka dhana siyaasadda
iyo sidii loo dejin lahaa. Puntland iyo Jubbaland waxay ku andacoonayeen in gobolka Gedo laga saaro ciidankii federaalka Soomaaliya, ciidankaas oo jooga xuduudka Soomaaliya ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeyay. Hadda inkastoo khilaaf aada diblomaasiyadeed oo ka dhaxeeya Soomaaliya waxay gaartay heer in xiriirka isku jaro, saameyn ma ku yeelan kartaa in gobolkaas dib loogu cesho maamulka Jubbaland? Horta wallaahi waxaan adduunyada ka marnayn xilliyada doorashooyinka lagu jiro interference ay wadamada qalaad ku yeeshaan wadanka doorashada kaliya oo maahan wax dowladda Soomaaliya aan maanta ku dhaliilayo. Jordan Double Bush iyo doorashooyinkoodii George Bush iyo madaxdii ka horeysay amaba Barack Obama doorashadiisii, hadda Joe Biden doorashada tan ku soo baxay, tii dhexda u ahayd Donald Trump ku soo baxay, dhammaan waxaa laga tirsanayay inay faragelin Ruushku ku lahaayeen. Sidoo kale doorashooyinka dhanka Ruushka dhacaan waxaa lagu tiriyaa oo lagu dacayadeeyaa inay faragelin ku leeyihiin Mareykanku. Waa dee labadii wadan ugu xoog weynaa waad qiyaasi karaysaa baa waxay ka cabanayaan faragelin. Waa khasab oo wadan Afrika ku yaal faragelin kama marnaan doono. Arrintaas waxaan u malaynayaa haatan hadda la joogo saaxadda amniga ay saameyn xoog weyn ku yeelanaysaa. oo haddii ciidamada Gado laga soo saaro sida aniga fikirkayga ah iyo dad badan oo Soomaaliya ay qabaan, haddii ciidamada Gado laga saaro waxaa laga yaabaa in ajandayaal dagaal oo wadanka Kenya uu leeyahay inay fusho. Waxaan anu jeclaan lahaa in doorashada laga madax baneeyo, shuruudahaas ay ka mid tahay xuduudaha hala baneeyo. Soomaalida hore xiran jiray rag dagaal ma waayo gundigiisu ka dhashaa. haddee laba wadan oo safiirada kala qaatay what will be the next, haddii estimate kareyna ama qiyaasno xaaladaha ku xigi kara malahayga dagaalna uu noqon karaa, wanaagna uu noqon karaa. marka waxaan leeyahay ha laga dhaafo arrinta Gado, saameyn badan oo ay ku yeelanaysaa oo waliba mid amni iyo mid siyaasadeed ah, iyadoo wadan walba uu ku hardamayo inuu wadan doorashadii saameyn ku yeesho oo ninuu u baahan yahay la soo baxo. taasuna mid daha ka cad bay ahayd ololayaasha doorashooyinka Soomaalidu waxay ka bilowdaan Kenya iyo Ethiopia. intaasaan ka oran lahaa. mucaaradkii iyo dowladahan aan soo magacaabin xubnihii ku metelnaha dowladda federaalka waxay leeyihiin guddigii doorashada heer federaal ay soo magacaawday dowladda dhexe waxaa ku jira ciidamo kamid ah NISA. sidee u aragtaa in ciidanka laga saaro iyo in ciidan ku sii jiraan? horta waxaa jira waxyaalo muxarimaad ah nidaamka dowladnimo ama siyaasadeed marka laga hadlayo. 3 shay looma isticmaali karo doorashooyin. waxaa ka mid ah hantida maadiga ah ee dhismayaasha, hantida dowladda ee dhismayaasha ah looma isticmaali karo olole. waxaa kaloo ka mid ah hantida maaliga ah, yacni kharashaadka ah, salariga dowladda looma isticmaali karo. ta saddexaad waxa weeyaan howlwadeenada dowladda, askar kaliyayna ku koobin, gudoomiyayaal degmo, gudoomiyayaal gobol, gafarnaro iyo dhammaan waxyaha dowladda looma isticmaali karayo doorasho. arrintaa mistake bay ila muuqataa, walow jiritaankeeda in la hubiyaana ay qurux badan tahay. mucaaradku waxaa moodaa inay halkaa ku saxan yihiin oo leeyihiin war dhexda hala dhigo banooniga oo aynu wada tuurno, sida qayb ka mid ah hadaladooda kasoo yeeraysay. laakiin hal mid baan laisku hayn. doorasho walba oo Soomaaliya ka dhici jiray xilligaas madaxweynihii joogay baa go'aaminayay, soo qorayay, xulayay, walow hadallo badan iyo diidmooyin badan aan laga horkeenayn. marka waxaan ka oran lahaa de yowma laka wa yowma calayk, maalintiisa oday khayr qaba ha loo daayo. intaasaan ka oran lahaa, walow fikir igu kooban ay tahay oo bulshado dhan aanay ahayn. aad baa umahadsan tahay waqtiga munaasibka ah aan la qaadatay iyo idaacadda raadiyo Magan waa kaaga mahadcelinayna. mudane kusoo dhawow adoo magacaaga ku bilaabaya idaacadda Magan. bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin. saaxiib aad iyo aad baan ugu dhowahay idaacadda Magan, waana salaamaya dhammaan bahda ka shaqeysa. magacaygu Axmed Maxamed Xasan oo ku magac dheer Xaydari, waana dhowahay aad iyo aad baa umahadsan. mudane waxaan ku weydiinaynaa dhowr su-aalood oo ku saabsan doorashooyinkii federaalka. maxaa sababay inay doorashada dib ugu dhacdo? inay doorashada Soomaaliya dib u dhacdo waxaa kalifay factories badan iyo dhaliilo badan oo jira. haddaan mid iyo laba ka sheego saaxiibada Najibo, waxaa ka mid ah inayan maamul goboleedyadu ka midaysnayn qaabkay u dhaceyso. tusaale yar haddaan keeno labada maamul goboleed oo Jubbaland iyo Puntland
waqtigii loogu talagalay inay soo qoraan guddiga u matali lahayd doorashooyinka ma soo qaban. taasna waa dhaliil la oran karo xogaa inuu isfahan waa ka taagan yahay maamul goboleedadaas labada maamul goboleed iyo haddii ilaahay ku roon yahay federaalka. taasna caqabad bay ku noqon kartaa, waxyaalaha dib u dhigaya way noqon kartaa. sidoo kale waxaa jira tuhun ay kala qabaan mucaaradka iyo maxaafadka. tuhunkan waxaan ku tilmaami karaa saaxib guddiga mucaaradku inay aaminsan yihiin guddigu doorashooyinku inayan ahayn mid wada matela oo 100% si cadaalad ah loo soo xulay. for example ahaan waxay ku dhaliilayaan maxaafidka inay ku jiraan ciidamada dhisa qaar ka mid ah. dhaliilahaas iyo kuwa kale way jiraan saaxib. saameyn intee la eg ay ku yeelan kartaa maadaama ay jadwal jiray inuu dib u dhaco waqtigii lagu ballamay? tusaale ahaan waxaa lagu ballamay bishan December inay dhacdo doorashadu, tan madaxweynaha dib ma usii dhici kartaa bisha February 8 ee lagu ballansanaayo? niyo waa la oran karaa dib u dhici kartaa boqolkiiba probability-ga ee dib u dhici karto oo wax macquul ah because in way loo dhamaado oo guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedyada iyo mucaarad iyo maxaafid ba u dhan yihiin bay ahayd. laakiin inta uu tuhunkaas iyo kala shakigaas jiro waxaan u malaynayaa boqolkiiba boqol inay dib u dhici doonto. laakiin waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim inay sida ugu macquulsan u dhacdo, tuhumada yararka iyo khilaafka yararka ay xaliyaan. intaasaan rajaynayaa. xalka ugu dhow maxaa weeye oo la isdhihi karo doorashadu federaalku inay ku dhacdo maamul goboleedyada in la qanciyo, sidoo kale in mucaaradka la qanciyana way rabaan, kulligood way rabaan. sidoo kale Puntland iyo Jubbaland waxay leeyihiin ciidamada federaalka ha laga saaro Jubbaland waliba gedo oo xuduudkiya bay ku andacoonayaan. iyagu xalkooda ma la hagaajin karaa ma la cabdinajiibo waa runtaa oo horta wax walba xal waa laga gaari karaa haddii sida ugu macquulsan lagu wada fariisto. anigu waxaan aaminsanahay dowladda federaalku inay xal ka gaari kadho kolleyba intay tahay dee jiid aan ku jiiday wax yacni kasoo naasacadaanaya ma jiraan. laakiin tan midoobidda inay ka midoobaan dhanka mataqaana guddiga doorashooyinka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxa suuragelin karta waa dowladda federaalka 100%. haddii laakiin dhacdo inay labaduba garka istaagaan oo yacni ay jugjug meeshaada joog noqoto, waxaan u malaynayaa inay weligeed saa u taagnaanayso. maanta waxaynu saadaalinaynaa inay dib ugu dhici doonto bilaa soo socday. haddii sidaasi ahaato wax macquul ah inay dhowr bilood oo dambe dib usii dhacdo because haddaan xalka la taaban caqabad meesheeda usii taagnaanaysaa. midda kale oo ah maamul goboleedyada ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya inay leeyihiin ciidamada Soomaaliya laga saaro. niyo kolleyba aanu aragtidayda waxaan u arkaa aragti khaldan because ciidanka waxa loo dhisay waa dalka inuu difaaco ka qayb qaato amnigiisa. dee ciidamo ku sugan oo Soomaaliyeed haddii la dhaho halkan laga saaro oo goob Soomaaliyeed joogta xogaa wax wadaneeda ka dheer bay u egtahay 100%. waxaan u malaynayaa waxaan macquul ahayn ama dana shisheeye iyo waxyaalo ku saabsan arrimo shisheeye inay ku jiraan barnaamijkaas because ciidan Soomaaliyeed haddii la diido meesha waxa imanaya kuwa Kenyaati ah iyo kuwa Amisom ah. marka waxaan aaminsanahay maamul goboleedyada aaminsan barnaamijka inay iyaguna ka tanaasulaan. aad iyo aad baa mahadsantahay. waqtiga wanaagsan aad nasiisay waan kaaga mahadcelinaynaa. aad baa mahadsantahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan la joognaa aqoonyahan ka mid ah aqoonyahanada Puntland kaas oo nooga waramaya khilaafka ka taagan in doorashooyinka hadeer mudane ku soo dhawow. waa mahadsantihiin. magacaygu Cabdiraxmaan. haddaan su-aasha u guda galo khilaafka ka taagan doorashooyinka heer federaal waa khilaaf cad. khilaafkaasna waxaa lagu xallin karayaa waxyaalaha la tabanayo inay dowladda federaalku tabashadaas xaliso oo ugu horeyso tabashadaasi in guddiga doorashooyinka dadkan dowladda u shaqeeya oo amniyaadka waxaa laga saaro dad madax banaan la keeno. markasta guddiga doorashooyinka horta xaq waxa uu leh inay dowladda federaalku cidii rabto u magacaawdo, laakiin dad amniyaad iyo waxaa ka shaqeynaya niisa dhexdeeda in laga magacaabo waa laga fiican yahay. hawshan gedana horta geda meel xuduuda bay ku taallaa. ciidankan
la leeyahayna laga soo kaxeeyo sax ma aha arrinkaasi waa in ciidanka loo daayaa waa meel xuduuda waa dalan mataqaanaa safaaradihii kala qaadanay xadkooda ciidan laga soo kaxay maayo gado laakiin waa inuu Axmed Madoobe ciidankii Jubbaland keenaa si ay doorashadu u dhacdo oo ciidankiisu maamulaan korjoogtana lagala socdaa iyo ciidanka federaalkana korjoogta keenaa oo lala socdaa si xaalku u dhacayo doorashooyinka labadaas hadda ugu muhiimsan oo dadku isku haystaan labadaas xal hadii laga gaaro doorashadu hore buu soconaysaa laakiin hadda sida la filayo gadaal bil baa laga yaabaa inay gadaal u dhacdo waqtigii loogu talagalay waqtiga hadda joogna waxaa la rabaa inay xildhibaanadii soo baxaan federaalka aqalka sare ergooyinkii diyaar yihiin xildhibaanadii kale oo aqalka hoosena iyagana hawshoodu socoto ilaa iminka wax socdana ma jiraan hawshuna waxay ka taagan tahay guddiga doorashooyinka iyo ciidankaas la geeyey ciidanka geedaha laga soo celiyo la leeyahay marka anigu wax ku xalin lahaa guddiga doorashooyinka tabashadoodu waa fududahay guddiga doorashooyinka hawsha qabtaan waa hawl iska yar waxay qabtaan badi waa maal hebel bay dhacaysaa isku dubaridkii doorashooyinka waxaas qabtaan ciidankan gedana ciidanka xuduudka jooga ciidankaas lama soo kaxaynayo laakiin ciidan kale Jubbaland baa la keenayaa oo maamula hawsha doorashooyinka maamula Axmed Madoobe sida in lagu qanciyo weeye intaasna ugu soo jeedin lahaa meeshan la socotaan waa raadiyo magan aad baa u mahadsantiin midnimo tarafi cali inta ka soo tirsataan talana meel wada dhigtaan tijaabi qaran wax tara tashada Soomaaliyeed tashada Soomaaliyeed waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkan uga hadlaynay khilaafaadka doorashada Soomaaliya barnaamijkan waxaa idin soo diyaariyay kuna soo dabariday anigoo ah Najiib Salaad dhanka farsamada waxaa iga caawiyay ustaadkayga Ismaaciil intaan dib ugu kulmayno barnaamijkan oo kale waxaan idiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo noodi kulantee intaad miis wada tagtaan tashada Soomaaliyeed tilmaansada madaxtayale tashada Soomaaliyeed tilmaansada madaxtayale تنازل ربايش انتهت ميس وذا تكتان تنازل ربايش انتهت ميس وذا تكتان تشهد صومالي تلمان صدى مدح خيالي تشهد صومالي تلمان صدى مدح خيالي طريقيني لنطو